꽃이 피었습니다입니다. toban sano ayuu codsanayay in filimkiisa shaashadaha laga soo daayo ilaa heer uu gaaro inuu ka niyad jabo oo iskaga iibiyo qalabkiisa laabtoobkiisa lacag dhan $675 lacag la'aan awgeed. Action! musalsalka ugu hadalhaynta badan caalamka ku jirana lambarka koowaad taxanaha ugu daawashada badan ee Netflix. taxanahan oo lagu magacaabo Squid Game ayaa laga leeyahay wadanka South Korea waxaana soo deysay shirkadda aflaamta ee Netflix. haddaba maxaadan ka ogeyn taxanahan aadka looga hadalhayo baraha bulshada? musalsalkan waxa uu ku saabsan yahay ciyaaro la ciyaari jiray waqtiga ciyaalnimada. ciyaarahaasna waxa ay ka kooban yihiin ilaa 6 ciyaar. haddii aad guulaysato waxaad helaysaa lacag aad u badan. haddii aad ku guuldareysatana waa lagu dilayaa oo geemka ayaa laga saarayaa ama waa guulayso oo lacagtaas hel ama dhimo. afar boqol konton iyo lix qof ayaa hal meel iskugu wada keenaya ayagoo la ciyaarsiinayo ciyaarihii ay ciyaari jireen waqtiga ay ahaayeen ciyaalka. afartaas boqol konton iyo lixda qof ee meesha la iskugu wada keenay qof walba waxaa haysata dhibaato xagga dhaqaalaha ah, dhibaato ay naftooda halis u gelinayaan inay ku guulaystaan lacagtaas, oo uu qof walba jecel yahay inuu noqdo qofka ugu dambeeya ee qaata lacagtaas. atooraha ama actarka uu filimka ku socdo waxa uu haystaa nambarka 456. dhibaatooyinka haysta ee ku sababay in naftiisa halis uu u geliyo si uu ugu guulaysto lacagtaas waxaa ka mid ah shaqo la'aan haysato iyo lacagta uu soo helo uu ku gubo khamaar. xaaskiisana way ka tagtay oo waxay guursatay nin lacag leh. gabadha kaliya oo uu dhalay wuxuu u awoodi waayay in nolosheeda uu dabaro sida waxbarashadeeda iyo caafimaadkeedaba. sidoo kale hooyadii waa qof waayeel ah oo la xanuunsanaysa cudurka macaanka ah, wuxuuna u awoodi waayay inuu u soo gado daawo ama isbitaalka uu geeyo. deemo aad u fara badanna waa lagu yeeshay. dhibaatooyinkaas oo isbiirsada ayaa ku sababay atoorahan inuu ka soo qayb galo ciyaarahan naftiisana uu halis u geliyo. goobta ay ciyaaraha ka dhacayaan dadku waxay u kala baxayaan koox koox waxayna noqonayaan group. qof walbana waxa uu raadsanayaa qofka uu isleeyahay waad ku faa'iidi kartaa ama waxaad ka helaysaa caqli ama xigmad. actarka 456 waxa uu ka soo agdhawaanayaa mid hadda ka hor ay saaxiibo ahaayeen iskuulkan isla dhigan jireen oo nin aad u caqli badan ahaa si uu ugu baxsado caqligiisa ama xigmadiisa waxaanu uga faa'iido. sidoo kale filimku waxaa ku jira wiil la dhaha Cali, wiilkan oo dad badan qalbiyadooda soo jiitay. Cali waxa uu ka soo jeedaa wadanka Pakistan. hooyadii iyo qoyskiisa ayuu u dadaalayaa una xamaalayaa naftiisana halis u geliyo si ay lacag ku helaan. laakiin Cali daacadnimadiisa zaa'idka ah ayuu ku waayay naftiisa, waxaana dhihi karnaa asagaa gacantiisa isku dilay maadaama meeshu ay tahay ciyaar qof walba iyo naftiisaba. musalsalku waxaa xubin muhiim ah ka qaatay oo ku jiray odaygan oo ku ciyaaraya lambarka eber eber hal. qisada iyo sheekada musalsalka waxaa nuxurka u yeelay oo uu filimka dhan ku socday waa odaygan. haddii musalsalka weli aadan daawan oo aad haysid qisada odaygan, marka aad daawanaysid kuguma soconayo musalsalka oo kuma macaanaanayo. sidoo kale mid la yaab kale oo ay dadka dhan la cajabeen filimka sheekadiisa waxaa la qoray 2009 waxaana qoray directorka lagu magacaabo Hong Dong-yang. 10 sano ayuu codsanayay in filimkiisa shaashadaha laga soo daayo laakiin waa laga diiday oo waxaa lagu yiri filimkan ma gadmanayo oo waa filim ciyaaleed waana filim khiyaali ah ilaa heer uu gaaro inuu ka niyad jabo oo iskaga iibiyo qalabkiisa
laabtoobkiisa lacag dhan $675 lacag la-aan awgeed. maantana musalsalkiisa waxa uu uga jiraa lambarka koowaad ilaa 90 dowladood. waana musalsalka ugu daawashada badan ee hadda ka socda Netflix. Director-kana lacagaha uu helayo xad-dhaaf ayay ku socotaa maadaama filimkiisa uu noqday midka ugu daawashada badan ee hadda ka socda Netflix. sanado ka horna lacag la-aan awgeed ayuu iskaga iibiyay laabtoobkiisa lacag dhan $675. waxa uu sabro oo uu soo dulqaata maantana wakaa musalsalkiisa aadka loo hadalhayo. intaas ayay noogu eg tahay qisadeeni aan kaga hadalnay musalsalka Squid Game. haddii aadan weli fiirsan hadda soo daawo, haddii aad daawatana waxyaabihii kugu la yaabka badnaa commentigana lagula wadaag. 삶의 벼랑 끝에 서 계신 분들입니다. 게임에 참가를 원하지 않는 분은 지금 말씀해 주시길 바랍니다.